jaadka waxaa ku jira laba macdan, laba maado. labada maado waxba si dhakhtarnimo magacyadoodu sheegi maaye. mid waxay ku jirtaa geedku marka uu cusub yahay ee laga soo jaray geedka laantu. midda labaadna taas ayaa isku bedeshata labaad markii 48 saacadood wixii ka badan ay gaarto. tan khatarta ah ee geedka dadka jeclaysiisay ta kalaba way leedahay isla arintee waa ta koowaad ee katinoonka loo yaqaan. macdantaas ilaahay jirkeenna wuxuu u abuuray in xaalad adag markaan la kulanno haddaan libaax halkaa igaga soo horbaxo in dareenka aan qaatay khatarta aan qaatay iyo wixii kale lamida jirkayga dheecaamo ku jira ay sii dayso maskaxdu iyo xubinadu sii daayaan oo uu jirku isku diyaariyo marxalad adag oo degdeg ah sidaan uga badbaadi lahaa marxaladda amaan cararo amaan iska cisho amaan gabado xaaladaas cusub dheecaamadaas ku soo yaacaya jirkayga ayaa isiinay. macdantani waxay dhaqaajisaa macdanahaas stresska ilaahay u sameeyey qofku inuu ay dhaqaajiyaan ayay iyadu adoon dhibaato ku hayn adoon libaax arag adoon mushkilo kale arag ayay markaad cuntid marka uu yiraahdo su kharaarku haygu baxay markuu dhiiga gaaro ayay waxay dhaqaajinaysaa macdani. qofka laba meeloodba weerarkiisa tagaya mid waa jismiga iyo maskaxda. wadnihiisa haddii la garaaco xoog buu u shaqaynayaa wuxuu ka baxay xaaladii deganaanshaha xaalad colaadeed buu galay oo wadnuhu xoog buu garaacay. haddaad dhiigga cabirtid xaaladii deganaanshuhu ka baxay oo dhiiggii kor buu kacay. iska dhaaf wax kale indhaha buuda yar ee ku jirta intaanu fariisan haddaad eegtid markaan dambe ee marqaanku gaaray way furmayaan xaaladaha colaadaha iyo stress aad bay isku furayaan dagaalka isku xabeynayaan. marka wadnihii baa xoog isku garaacaya dhiiggii baa kacaya indhihii baa furmaya feejignaantii qofka ayaa kacisa oo qof feejigan ayuu noqonayaa oo xaggii hurdo iyo dareenkii wuxuu ka kacayaa caadiga oo dareen wuxuu u gudbayaa inuu qofku marxaladan uu soo jeedo. qofka fikirkiisa badanaya sheekadiisa badanaysa hadalkiisa badanaya wixii caadiga oo dhan ka soo wada kacaya. waxay kaloo weeraraysaa macdantaasi qaybta ruuxa qaybta dhimirku markay kaa keliya weerari lahayd qofku xaaladan uu ku jiro way dhibi lahayd laakiin qaybta kale ayaa u qurxinaysa waa qaybta maankii baa u qurxinaya xaaladan uu galay ayay waxay siinaysaa iyadoon tan ilaa siinaysaa inuu qofku u arko xaaladu raalli ku yahay xaaladu ku maqsuudsan yahay xaaladu ku faraxsan yahay xaaladu maaragtay mashaakilaadkiisa xalkeeda ay u fududaanayaan xaalad noocaas waa qaybta marka dambana u gudbaysa inuu qofku garaadkiisii uu halkaa ka sii koro oo waalida iyo dhibaatada aan leenahay aan ka hadli doono. jaadka markii la soo jaro caleentaa cusub waa in lala cararaa sida ugu dhaqsaha badan waa in qofkii cuni lahaa loogu geeyaa waayo waxaan idin 48 saac wixii ka dambeeya waxay isku bedelaysaa mid itaal daran oo katiin leeyahay. gaarigu sidoo ordaya waad arkaysaa inta waxaa lagu shubayaa biyo si aan caleentu si dhaqso ah
bacbaa lagu xirin muus baa lagu xirin talaagad baa la gelin waa lala cararin waa lala intaasoo dhan waxaa la raadinayaa taa hore inaanay isku bedelin ta dambe ee uu qofkii dhaqso cuno xaaladda noocaas qofku mar qura markuu cuno dee waa mar laakiin markuu noqdo qof caadaysta ee maalin walbaba jirkiisii iyo maskaxdiisii iyo damiirkiisii ay sidaa u kacaan energy fara badan ayaa ka baxaya waxaana yimid caafimaad darradaan soo socno ayaan soo kuweeye soo ururinay midda koowaad cuntada nadiifka aan beeraheena ka beerano ee saladkaan u naqaan ee fitamiinada badan ay ku yaalaan ee beer qurux badan ka baxday ee aad og tahay gacanta ay soo taabatay guriga markaad tegaysa iga soo meyr baa tiraa isaga 35 gacmood ayaa eegaya xirmadii oo midba taaban oo waxay gacmahaasu jeermis iyo dhib wadaan adan midna la socon marka intaan isagaba la gelin dushiis waxaa dhici kara in wasakh fara badan ay saaran tahay kulkan ha cuna maba dhehene waxaan oran lahaa iska meerad liisa haddaadan wax kale aadan awoodi karayn iska meer waad arki doontaa markaad miirtidna waxaa ka daadan doona ee wasakh iyo qashin ayaad arki doontaa haddaan se u gudbo jaadka dhibaatooyinkiisa waxaa ugu horeeya ilkaha laga bilaabo labada qowlal afka ciridka caloosha meel allaala meeshuu sii taabto wuu xoqayaa nabaruuna ku samaynayaa ama gastriga u bixi ama stomatitis u bixi ama waxaa doonto u bixi aakhirka dambena ilkuhu marka hore hadday madoobaadaan marka dambe way daadanayaan habeen dhaweytaan waxaan tegey mid yaroon dhalay anoo qaaday dhakhtarka ilkaha waxaan ugu tegey keligay mooyaane wada dumar fadhiya meesha marka waxaan isiri ma sonkorta aad u cunaan iyo maxaan dhahaa nanaca iyo chocolate-ka waxaa miyaa dumarka ilkaha ka galan qoftii ag joogtaa waxay tiri maya iyaku ilkahoodii xanaanayeen ragga jaad bay siisteen ilkahoodii jaad bay siistaan ya macnaha xataa awooday ku tagaano iligii daba qabtaan male waayo waxaa xukumaka waxaa kale oo ah dhib wuxuu joojiyaa rabitaanka cuntada marka qofkii waxaa ku dhacaya nafaqa darrada oo dhanna waxaad ay salka ku haysaa waxa laala wixii xanuun ahaa ee difaaca jirka ku hayay meesha oo beerka ugu horeeya magaciisa wuxuu leeyahay oo kale calool istaag waxaan taa kaga soo gudbaya labada qaybood ugu muhiimsan caawa damca halka inaan ka sheego intaas waa intaas ka yar waxa weeye dalkeena waxa ku batay waxa loo yaqaano stroke ama valig ayaa ku batay dalkeenana waxa ku badan waalida muxuu jaadku qayb ka leeyahay qaybta uu doorka uu ka leeyahay waa maxay qofka jaadka cunaa waa sigaar yacab haddaanu sigaarka cabin waxaa saaxiib la ah mid kaloo jaad cunaya oo sigaarka buufinaya oo sanka ka cabaya marka mar walba jaadka waa cabaa ama sanku sigaarka mar walba sigaarka waa cabaa ama sanku ka cabaa ama isaga buufiya sigaarka iyo jaadka oo aan idiin sheegay muddo ayuu wadnaha garaaciisa iyo dhiigga kicinayay aakhirka dambe wadna xanuunku iyo dhiig karku waxay ka mid yihiin afarta shay ee ugu waaweyn ee vaaligas keena markii subaga iyo macaanka laga tago saddexdii kale halkan bay ku dhayin xididadaa xumaanaya wadnaha garaacaya daalaya xinjiraa samaysamaya xididadaa xirmaya ama wadnuhu ku dhufanaya ama maskaxdu ku dhufanaya